maamulka degmada Beledweyne iyo odayaasha dhaqanka gobolka Hiiraan ayaa waxa ay baaq ka soo saareen beelaha walaalaha ee ku dagaalamaya degmada Beledweyne ee gobolka Shabeellada Hoose. Odayaasha iyo waxgaradka gobolka Hiiraan ayaa waxa ay ka dalbadeen dowladda federaalka Soomaaliya iyo maamulka Koonfur Galbeed inay kala dhaxgalaan beelaha ku dagaalamaya qaybo kamid ah gobolka Shabeellada Hoose. waxaan rabnaa halkan aan u nimid inaan ka hadalno dagaalka ka socdo Shabeellada Hoose degmada Beledweyne. waxaan codsanaynaa dagaalka in la joojiyo. waxaa gardar in la joojiyo dagaalka la joojiyo kadib la iskugu yimaado wada hadal. annaga intaas aan codsanaynaa. dowladda Soomaaliya waxaan u sheegaynaa way gaabisay mar hore inay dhex gashay ahayd. ciidan waa haysataa meesha waa degan tahay dadaa islaayna waana fiirsanay waa dowladdu ama dhigi kartaas dowladda in dhex gasho oo kala joojiso dagaalka. dadweynahan waxaan ugu baaqayaa inay dagaalka joojiyaan wada hadal iskugu yimaado. odayaasha meesha joogta oo meeshaas ku nool waxaan rabnaa inay u guntadaan arintaas iyada ah lagu bedelo wada hadal oo walaalnimo ah oo ehelnimo ah oo la joojiyo dagaalkaas. intaasaan leenahay waxaan faraynaa odayaasha dhalinyarada waxgaradka intaasaan u sheegaynaa. waxaan dowladdu doonaynaa inay soo dhex gasho dowladda dadkeeda shacabka oo islaaynaaya oo isdilaaya waxay ku qasban tahay dowladda inay soo dhex gasho oo ay kala qabtaan dadkaas si aad iyo aad ay ummadaas iyada u kala badbaadiyaan. intaasaan u sheegaynaa dowladda oo weliba codsi ah. anigoo ah nabadoon Cabdullaahi Cabdi Isaaq ku magac dheer soo jeedo waxaan meeshaan baaq nabadgelyo ugu jeedinayaa colaadda in la joojiyo ka socoto Beledweyne. Soomaali waa isdili jirtay way dagaalami jirtay way heshiin jirtay laakiin lama arkin mayid inta la dilo mayid asoo la gubay caalamka lagu ma arkin. fadeexad way fool xum way Soomaaliya oo dhamay wax u dhimaysaa. waxaan leenahay dagaalkaas ha la joojiyo wada hadal ha lagu bedelo dagaal wuxuushnimo waaye ha la joojiyo walaalnimada ha la soo celiyo wada deganaashada ha la soo celiyo wixii arintaas ku kacayo dhalinyaro oo aan maartay maskaxdooda kala goyn ha la celiyo. labada qaybood dagaalka ka dhacay waxaan ugu baaqaynaa colaad dambe inay dhicin wiil dambe inaasan dhimanin meeshaas in maartay afgarasho iyo walaalnimo iyo dirisnimada la soo celiyo. anigoo ku hadlaaya magaca odayaasha dhaqanka reer Hiiraan waxaan leenahay dagaalkaas ha la joojiyo si degdeg ah loo joojiyo. walaalahay waxaan ka codsanayaa dagaalka inay joojiyaan waxay sameeyeen wili wax la sameeyay ma ahayn. Soomaali waa culooba jirtay waa dagaalama jirtay waana heshiin jirtay sidaas ay walaal ku ahayd laakiin in la gubo mayid oo la jiido la gubo xaraan waaye. arintaas ayada dhibaatadaas waana saameysay Soomaaliya oo dhan ay dhibtay intii muslim ay dhibtay. arintaas dagaalkaas ha la joojiyo raali kama nihin muslimka oo dhan raali kama aha odayaalkana kama aha cid walbo danqanayso oo muslim ah ama arxan ah dagaalkaas waa mid ku xumaatay. sidoo kale odayaasha ayaa waxay baaq ka soo saareen dagaal beeleedyada dhawaan ka dhacay degmooyin hoostaga magaalooyinka Baydhabo iyo sidoo kale Kismaayo. waxay ka socdaan Kismaayo waxaan codsanaynaa dagaaladaas in la joojiyo. dagaal wiila ku dhinta wiilku ma dhasho intaasaan codsanaynaa. gudoomiyaha degmada Beledweyne Cismaan Dhicis Dhuubo ayaa ka dalbaday dowladda federaalka Soomaaliya iyo maamulka Koonfur Galbeed in ay ka qayb qaataan sidii loo kala dhaxgali lahaa dagaalka ka socda degmada Beledweyne ee gobolka Shabeellada Hoose. awalan marka hore waxaan leeyahay inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun. masiibada ka dhacday Shabeellada Hoose degmada Beledweyne aadaan ugu xumahay anigoo sheeganaya gudoomiyaha degmada Beledweyne. waxaan dadkaas ugu baaqayaa insha Allah biidnillahi alkariim dagaalka in la joojiyo. dagaal wiil waa ku dhintaa moogoy kuma dhasho muxuu ahay dagaalkaas waa soo noqday waa dagaal qaab daran waaya. aniga waxaan leeyahay labada beelood oo meesha maartay ku dagaalamayso dad walaale ah waaya waa dad ahal ah waa dad maartay intaas oo qarni wada deganaay. dagaal wiil waa ku dhintaa moogoy kuma dhasho. waxaan ku baaqayaa haddaan nahay gudoomiyaha degmada Beledweyne in dagaalkaas la soo afjaro. waxaan u sheegaa madaxweynaha Cabdicasiis Koonfur Galbeed waxaan u sheegaa madaxweyne horta waad mahadsan tahay warka aad sheegtay war fiican waaya laakiin ficil ayaa u baahan yahay. meeshaas adaa xukumo Shabeellada Hoose waaya aday ku hoos timaadaa arintaas waxaa la rabaa inaad wax ka qabato
haddaad wax ka qaban waysane ceebteeday leedahay ceebtaas aday ku hoos taallaa waxaa la yidhaahdaa qormo wixii ay qortay hoosteeda dhigtaa meeshaas aday ku hoosmaya dhulkaas adaa xakumo haddiid awood u wayso dowladda federaalkaad u yeelinay insha allah biidni allah kariim arrintaas aadaan ugu xunnahay waa ka xunnahay dadka dhintane waa u tacsiyeynaynaa wixii dhaawacayna ilaahay ha bogsiiyaan leenahay cabdiwaaxid maxamed aadan wararka dalkan iyo CV magaalada Beledweyne.